بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بشاريدا mahasanta 20 yoonayto litii balansiida 2000 ka magaalada Muqdisho iyo Ambahi anoo magaalada Baydhabo ku bahi ujeedka safarkayna wali hay in aan degmada Baraaw ee caasimada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya safar gaaban ka saada iyadoo safarkaasna ii weheli agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose iyo xubinka dareerta hay'adda IOM oo madii horena magaalada Xamar iska saani ku baadana safar angalnay degmada Baraaw ujeedada uu degmada Baraaw insaani lama ujeedi hayti gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo madiinka horeeyay madii la magacaabay usoo saada degmadaas usoo la hadal guud ahaan ba maamulka cusub oo gudoomiyaha la magacaabay ku baad usina la magacaabay waana la kulmo qaybo social duun sidii iyo dawladnimada meelay gudoomiyaha hore iyo inay maamulshay walshana horan ku sii wadaan iyadoo aan iyo inay agaasimaha wasaaradda iyo inay xubinta ku dareerta hay'adda IOM na safarkaana hay una deersina degmadaas Baraaw oo una ogna in iyo cirifka gobolka Shabeellada Hoose ka taal waana caasimada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya in ambaanta warbaahin dawladeed oo afka dawladda ka hadalaas oo arrimaha bulshada iyo inay dawladnimada ba walbadan ku deersiyaasin deegaankaas ambaahanya farilaal hamda dadala badan oo wasaaradda suubadi wali helnay idaacadii FM ka haytay 2000 oo waad haytay degmadaas la jeeyfadi wali haynayeen waana fiiriyaan meelan ka haboon oo la safadi idaacadaas radio Koonfur Galbeed Soomaaliya qaybtiisa degmada Baraaw safar eed muhiim ah wali la kulugnay aniyoonay gudoomiyaha gobolka agaasimaha bulshada qaybo jashal duun wali safaylo oo akhaarnimo ka jirto oo ehelnimo ka jirto dawladnimo ka jirto oo hanin dhawaay odayaalka dhaqanka dhalinyarada iyo inay bulshada qaybo jashal duun oo maamulka degmada Baraaw horkahay safarkan madii dhamaysanaynaa wali door badnay in una hamarna airportka weyn ee degmada Baraaw oo muddo galanta la ka hayay dhismiyay walay madaasneen kumaadeen wali hayna airportkaas inay saamuna dareemana doona waraysiin injineer iyo dadka howlwadeennada oo holaas galanta ka hayay sheegana airportka inay waqti dhow sadan ka dhow nagada doona airport bin Ilaahay taala degmadaasna waalado doonto diyaardoon ka dhigi doona marka bulshada iyo odayaasha iyo siyaasiyiintii maamulkaas isyaal kulanteen ma kula hadleen dabcan bulshada reer Baraaw sidii madaas uu wajijo ku akhriyaan ama ku aragaan dad dawladnimada eedanka heelan ahaayeen waana danayeen wali su'aalo iyo eedni warsadaan wali haytay dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya maadaama caasimadiyo degmada Baraaw ama ninkooyasa ama inta la hanguure ama inta la hadagay su'aalooyinka badan oo bulshada qaybo social duwan warsadaan hayti nololeen ballan qaadnay xilligii garoonkan sanadada garoon diyaar ah oo diyaarada ku degi koraan dabcan caasimada hadda maadaama madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xukuumaddiisu dhanba hadii caasimada garoonsha dhamaad inay guuriyaan suurtagal ah wali baahantaan imkaaniyad kasta oo dawladda baahanay meelida la ku diyaari runtii walina ku maaday dad ogol jiritaanka iyo dawladnimada Koonfur Galbeed Soomaaliya waan diyaaran iyo hadhawaayaan waqti kasta oo dawladda hanguurta deegaanadaas duruufo kordo iyo nin sheegan wali haytay in nimankii dhibaatada ka hay Soomaaliya guud ahaanba al-shabaab la eray iyo dhibaatooyinka hayaan magaalada gudaasha aan hayn laakiin meelo magaalada ku baxsan oo ilaa 30 kilomitir 40 kilomitir shacabka iska dareero gobolada Jubbooyinka Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose maadaama marka la maro degmada Baraaw iyo dhibaatooyin badan ka hayaan sheegan laakiin maamulka odayaalka iyo bulshada qaybasho shal duwan wali sheegana in degmada Baraaw degmada nabada gudaaga degmadana dabcan ciidamada shal duwan oo ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo inay bariiska iyo Amisom iyo roogano amniga magaalada Safariyo isugu hayaan laakiin wali dareemase degmadaas wali haytay degmooyinkii ka dambeeyay cadawga lagu xorooy raadkii cadawga dhibaatooyinkii iyo injeysada ilaa hada kumaadaan marka degmo qadiimi iyo xadaarad leh aragaan waan baahan mustaqbalka insha Allah taala dawladda salaka wasaaradda mudooyinka dambeey way bawaday dadaala markaas la ku xoojiyo doorka warbaahineed ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed marka howliyada hayti inta wal marhayn markii guutaan deegaanada Koonfur Galbeed lagu hadal iyo siiba xarunta ku mildeerka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed shariida mahasanta wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya dabcan wali ku madata wasaaraddu
labaatan dhowrka oo madaxweynaha Shariif Xasan Sheekh Aadan uu magacaabay wasaaradan madina walan ku fiiri wasaarado wali waa muhiimkan ee dowladda Koonfur Galbeed ka jirta maadaama ay tahay wasaaradda khayraadka dalkan reer Koonfur Galbeed Soomaaliya kan qarsoon iyo kan banaanka yaalooba la fado in ay bandhig dawaana Koonfur Galbeed ku gada caalamka iyo ummadda Soomaaliyeedba magaca Koonfur Galbeed leeyahay dadsi iyo dowladdiisa iyo deegaanadiisba ونوتاس كدولنا ونقول ذا واجبات كي طبعا أنا أوكا وزير هاي اللي مديني وزارة أنا الروجا ولا تابض كرو كفانو كرو بري هذا أنا كتبوا أنا لسه ولا نسون هذا والدولة ولا لهان هاي والدولة هذا ولا اللي مدي هاي صدقوا رقبتوب وزارة لما السنة أول هذا في دولة بلاو كهاي تأيل كفايل كهاي ملاهينا deegaan iyo ka shaqeeyaysa ku meel gaar ah banaanka ka shaqeeyay idaacada iyo wasaaradda asay dadaal badan oo wasiirka oo aanay wasiirku xigeenka agaasimaha guud ee wasaaradda kaalmada Ilaahay oo isla jaraan oo nasuubini unaga waliba fuliyaan hada waajibkeena igmadi hay lan walba inuu iska talado wasiir walbeena aqoontiisa kartiisa dadnimadiisa inuu adeegsado inuu wasaaradda lan igmadi ha ku dhalaala wala isku wada koro intii tabartiisa wala soo gobada kornaa ka kala kooy doono iyo gobada doona timaandeedka dowladda dhammaan in wasaaradda aan meel fayda deersi oo qorsheeyahay wasaaradda saad ku warqabto baxran weyn oo geeka madii magaasha la hagaada dabcan reer Koonfur Galbeed Soomaaliya khaasatan reer Baydhabo gurdaanga ya dhasati iyago raadiyaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasaaradda qaybasho shal wadooyin hadii TV-ga hadii raadiyaha hadii wasaaradda taba geeka xarumo iyo ka wada shaqeeyano waliba madax banaanka oo ka wada shaqeeyaan kulli inuu haysana dadaal Ilaahay subhanahu wa ta'ala ni garab galay oo diyaaran ahaynay wala dowladnimada wala isku dhaxala waa bareemadan inta ku tabaana guriga una dhasanay dadku dhan aragayaan noomadi isu roga oo asaasan gurigan dhisida leen arana ini ana ku tabnay laakiin wal dowladeed oo magalaho madi wasiir Xasan Roga gurigan la dhisay la rabo inaan ku tabo qorsheeyay waana ka sameynta badan yasi walaa leen madinahay wasaaradda saad ku warqabto safayleen dhisanta dabcan wasaaradda xarunta raadiyaha wasaaradda meelo iskala yaalan nootaas ku duulana warbaahin malahayn oo ummadda Koonfur Galbeed Soomaaliya anina wasiirka leenka magacaabay ee Ilaahay mahadis wala in shaqay FM ko isku tabareera magaalada Baydhabo ku shadanay dasku baadeen wala iska deeyay in la sheena TV Koonfur Galbeed Soomaaliya afja ka hadalo tabardor iyo aqoon darro badan isku jajara korta laakiin wala geeganin balaaw ana taas ku duulo wala in gordayna degmooyinka ama gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya baahanyin dhamaantooba niyo helaan warbaahin iyo kula dareeran guud ahaan xaaladda dalka gaar ahaan tan Koonfur Galbeed Soomaaliya barnaamijyada ku dareero hadii ta amniga hadii ta siyaasadda hadii ta horumarinta intooba in la helaan baahanyin wali dabcan iska deeyay ana shaana gobolada Baay iyo Bakool Shabeellada hoose warbaahin afka dowladda ka hadalaas ana weydii oo la kaalado dowladda iyo hay'ado saaxiibadan oo gargaarka badan nasiihaay waliba wasaaradda si toos ah taageero hay in diyaarina in sanadkan intuusan dhamaana waana rajeeyna doorashadan hataa dareerta intii aan dhamaano ku horba oo hirgeli doogna raadi weyn oo magaalada Baydhabo la sheegay ilaa 150 kilomitir lagu dhageysado doono FM oo hatta bayaalo tower shay diyaar iyo toddobaadka dareero oo rajeeyna in la rakaba ساسات كوسن رادي لما كون واد إن ونجينا دقمة براو تيش ما جرد بسافر كأن ملك سعداي هايتي ولا كلا ولا كفانا رادي إنك هوري reer Koonfur Galbeed Soomaaliya leeyin waliba luqadda Mayga ka bahadoono wali rajeeyna hata galanta ka hayna ismisheena dareera magaalada Baydhabo magaalada Xamar caasimada Soomaaliya in la ku furo iyagoo uu ognaa in 30 idaacado FM magaaladaas ku furin kullu soo baxa luqadda baxatriga ka hadlayaan inuu taas ku duulana waana dareemana gobolka Shabeellada hoose inuu xuduud leeyahay magaalada Muqdisho wali gortay wasaaradda in idaacad FM oo baahi doonto wararka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya dhaqansho fansho iyo suugaantii horumarsho meel isku marow waan intii badan ka bahdoonto luqadda Mayga ee magaalada Muqdisho lagu furo iyana wali rajeeyana balan una tagalanta ka hayno bardamba balaawadaas intii aan dhamaan idaacadaas in la ku furo doono magaalada Muqdisho saasaato kana degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakoolna wali rajeeyna iyana balaha dareerasa oo hada maalmaha dareeronin bal alaabtii lanka talagalay in Xudur la jeeyo hadii FM ki transmission ki la jeeyo hadii tower ki la jeeyo hadii motorka generator ka hay iyo qalab kasto idaacadaas aan baahanaytina wali waha iyana diyaarina Xudurna wal ku dhisi doona saasaato ko rajeeyana madii una degmada Xudur degmada Baydhabo oo hada FM kan yar shaqeeyaha ma weynaga una shadna ku baad Muqdisho in la shada baraawna la shada degmooyinka kala sida weejid iyo naaytay buuraka beenatay Xudurna feeska lamad iyo nin hada doona
dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya kan gaala la jara kan erinka la jara kan beertis fardow kan dowladnimadan heeliyow kulli shooba meelba iyo rogaan iyo telefoonada kula dareero koraan guud ahaanba xaaladda dalka iyo nayta koonfur galbeed Soomaaliya aan ka talgalnay walina rajay doona inta sanadkan dhamaan biidnillaahi taala inay walfayl oo reer koonfur galbeed Soomaaliya ka faanan doona inay warbaahinta wasaaradda warfaafinta gobolka doonto eedeeda maxsanta masir